kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha VOA toddobaadkan qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah xiisadda Ukraine iyo Ruushka oo walwal badan gelisay Soomaalida iyo dadka Afrika ka soo jeeda ee Ukraine ku nool haddaba maxaa u qorshaysan dadkaasi haddii Ruushku dalkaasi duulaan uu ku galo qoysas ku nool dalka Afghanistan oo gaajada iyo dhibaatada dhaqaale ee haysata darteed bilaabay inay kliyahooda iibiyaan si ay carruurtooda u quudiyaan aan ku bilownay waxaa sii kordhaya cabsida ku aadan in Ruushka uu duulaan ku qaado dalka Ukraine Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ayaa madaxweyne Vladimir Putin uga digay duulaan iyagoo sheegay in Ruushka uu cawaaqib adag u la kulmi doono haddii uu weeraro dalka Ukraine dhinaca kale dalalka reer galbeedka qaarkood ayaa muwaadiniintooda ku amray inay ka baxaan dalka Ukraine laakiin wali waxaa wadankaasi ku sugan jaaliyado badan oo qaaradda Afrika ka soo jeeda ku dhawaad 200 oo qof oo Soomaali ah ayaa hadda ku sugan gudaha dalka Ukraine haddaba xaaladooda waa sidee maxaana u qorshaysan haddii Ruushka dalkaasi uu duulaan ku galo waxaa magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ku sugan wariye Maxamuud Carab Sabuub Maxamuud ku soo dhawow qubanaha VOA marka hore mahadsan jala wandhow waa sidee dareenka Soomaalida joogta Ukraine maadaama ay jirto cabsi laga qabo in Ruushku uu dalkaasi weeraro maalmihii u dambeeyay walaal waxa socotay digniino iyo fariimo ay dalalka reer galbeedka iyo Mareykan iyo Ingiriiskuna ay hogaaminayaan ay dadkooda iyo muwaadiniintooda ay u dirayaan fariimo ah in ay wadankaasi ka baxaan sida ugu dhaqsaha badan maadaama laga yaabo maalmaha soo socda in wadanka Ruushku soo weeraro Ukraine fariimahaasi markii ay soo gaareen ama soo gaareen guud ahaan dadka ajaanibka waxa ku abuurmay warwar iyo walaac ku aadan arrimahaasi maadaama wadamo badan oo Afrikaan ah oo wadanka Ukraine aanay ku lahayn safaarado dadka ku dhaqan ee halkan Ukraine jooga ama wax ka barta ama deganaa waxay ka muujiyeen warwar aad u fara badan maadaama aanay safaarad ku lahayn ama wax xiriiro oo ay la sameeyeen ama la soo sameeyeen wadamadooda aanay jirin taasa mashkilad badan ku abuurtay Maxamuud marka dadka Soomaalida ah ee jooga dad nuucee ah isugu jiraan maxayse ka qabtaan dalkaas dadka Soomaalida ee joogta Ukraine laba qaybood bay u qaybsantaa qaybi waa qaybta ugu badan oo waxa ay u timid ama ujeedada ay u yimaadeen waxay ahayd inay wax ka bartaan oo ardaynimo u yimaadeen qaybta kalena waxay u joogaan qaxoontinimo inkastoo ay jiraan dad aad u tiro yar oo ka ganacsada laakiin labada qaybood bay u qaybsan yihiin waa dad ardaya iyo dad qaxoontinimo u jooga inta badan waxaa jirta meelaha aanay dalalku safaaradaha ku lahayn waxaa jira safaarado ku dhow oo howlahaasi u qabta ma jirtaa adeegyada muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u baahan yihiin meel ay ka helaan dalka Ukraine ama cid idin kala hadashay wax daad gurayn ah ma jirto meel cid gaara oo nagala soo hadashay arrintaasi markii aan la xiriiray ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baratay Ukraine iyo guud ahaanba dadka qaxoontiga ah laakiin waxa jira safaarad ku taala magaalada Moscow ama Ruushka oo mar la soo xiriiray qaar ka mid ah ardaydaasi oo una sheegtay xaaladooda weydiisay balse wali qorshaha iyo waxa ay ugu tala galeen midna ma cadaynin sala ajligeed wali warwarbay ummadda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed halka ku dhaqan ay qabaan in haddii uu dagaal dhaco waxa ay sameyn lahaayeen jahwareer badan baana ka muuqda maadaama ku jiraan dad laga yaabo in aanay magaranaysa markii ugu horeysay wax talaaba ah ama wax dagaala meel la kulmin lagana yaabo in magaranaysa waxa ay sameeyaan aanay garanahayn haddii dagaal dhacaba meel ay u jihaystaan aan garanahayn marka dalkaasi marka aad fiiriso ama warbaahinta aad dhageysato maxaa u qorshaysan ciidamada difaaca ee Ukraine ma iska caabin karaan Ruushka
mise waa ciidan aanan waqti badan isdifaaci karin? sida aynu ka maqalno warbaahinta Ukraine inta badan ay qorayso waxaad moodaa in xagga wacyiga aadka loo diyaariyay ciidamada Ukraine waxay qabaan in magaranaysa ay iska difaacayaan oo ay u babac dhigi karayaan haddii uu Ruushku soo weeraro dalal baa jira taageero iyo tababaro u sameynaya dadka muwaadiniinta ah kudhooda waxaa ka go'an in iyagu ay u dagaalamaan si mutadawacnimo oo ay u tababartaan iyadoo waqti xaadirkan la barayo habka ay naftooda u difaacayaan oo ay tegayaan meelaha tababarka dagaalkan waxay u arkaanba iyagu mid muqadas ah oo aan magaranaysa loo kala harahayn hadday muwaadin tahay iyo hadday askari tahayba guud ahaan waddanku saa xaaladda marka ugu dambeyntii maxaa u qorshaysan dadka Soomaalida ah haddii duulaan meesha uu ka dhaco iyo guud ahaan dadka Afrikaanka ah ee ku sugan Ukraine ma jira qorshayaal u degsan? ma jiro xaqiiqatan qorshe aan ku yiraahdo qorshahaasaa jira oo loogu talagalay ama iyaguba ay isugu talagaleen balse waxaan maankooda iyo maskaxdooda ka maqnayn oo ay doonayaan in ay uun dadka dhinacooda ka raacaan halka loo jahaysan yahay uun ay u jahaystaan laakiin waxa u qorshaysan in waxyaabaha muhiimka ah ay gacanta ku haystaan oo ay u diyaar yihiin in haddii ay dhib dhaco ama mushkiladii ay jirto in ay hadday document noqday haddii waxyaabaha yarar ee kale muhiimka ay noqotaba in ay soo dhaweystaan oo ay waqti kastaba feejignaan ku jiraan. aada u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab oo ah wariye ku sugan magaalada Kiev ee dalka Ukraine. qadka Skype-ka ayuu si toos ah noogu waramayay.